waxaa la soo saaray jadwalka wareegga hore ee horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha sanadda 2024-2025 sanadkan, waxaana lagu soo daray 2 kooxood oo markaasi hore ugu tirsanaa waa hore maadaama aysan qayb ka ahayn sanadihii ugu dambeeyay. Kooxaha sanadkan ku cusub waxaa ka mid ah kooxda dowladda hoose ee Xamar Muqdisho City Club ayaa lagu soo daray, sidoo kale kooxda Madbacadda Qaranka. Jadwalka ayaa markaasi waxa uu noqon doonaa qaab is-arag ah oo waxa loo ciyaari doonaa si group ah. Maalinta Khamiista taariikhdu ay ku beegan tahay 25 bisha 7 2024 waxaa ciyaari doona kooxaha Hagen iyo Muqdisho City Club, waxayna ku ciyaari doonaan garoonka Wish saacadu markay tahay 9:15 galabnimo. Kulanka xiga maalinimada Jimcaha ayaa la ciyaari doonaa 26 bisha 7 2024 Horseed iyo Madbacadda ayaa iswajihi doona garoonka Wish ayuuna ka dhici doonaa, oo kooxda Madbacadda ayaa sanadkan ku cusub, waana markii burburkii kadib ayay dib u soo laabteen kooxaha kubadda gacanta ee gabdhaha oo dib loo soo celiyay. Garoonka Wish ayay ku ciyaari doonaan 9:15 galabnimo. Kooxda Madbacadda ayaa kulankeedii labaad ee ciyaari doonta 29 bisha 7 ayay ciyaari doonaan, waana maalin Isniin ah. Waxay ka hortagi doonaan kooxda gabdhaha Hagen oo sanadkan ka mid ah kooxaha sida weyn ugu soo dhex muuqday xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay, qaybna ka ah guuleystayaasha horyaalka. Wish Stadium ayayna ku ciyaari doonaan 9:15 galabnimo. Talaado 30 bisha 7 2024 kooxda Muqdisho City Club ayaa ciyaari doona iyo kooxda Horseed oo wejiga koowaad ayay ciyaari doonaan. Kulankoodii labaad ayuu markaasi noqon doonaa labada koox. Wish Stadium ayay ku ciyaari doonaan 9:15 galabnimo. Kooxda MMC ayaa sanadkan waxay wacdaro ka dhigi doonaan tartanka kubadda gacanta ee gabdhaha. Sidoo kale Khamiiskooda bisha 8 2024 Madbacadda iyo sidoo kale Muqdisho City Club ayaa iswajihi doona burburkii kadib. Kulankoodii ugu weynaa ayay ciyaari doonaan Wish Stadium ayayna ku ciyaari doonaan 9:15 galabnimo ayay dhici doonaan. Kulanka weyn ee sida weyn xifaaltanka ugu dhexeeya maalin Jimco ayaa la ciyaari doonaa 2 bisha 8 2024 Hagen iyo Horseed oo la wada sugayo, waxayna ciyaari doonaan wejiga koowaad ee horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya. Labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha sida weyn ugu loolama horyaalka. Sanadkan waxaa difaacanaya horyaalka kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha Horseed oo ku guuleystay sanadkan, ayayna mar kale difaacanayaan inay ku guuleystaan ayaa laga yaabaa. Sidoo kale kooxaha kale ee markaasi Hagen iyo Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda Madbacadda ayaa isbedelo waaweyn laga sugayaa maadaama ay markaasi sanadkan loolanka aad u adag yahay. Kooxda Hagen oo markaasi ka careysan guushii ay ka gaartay kooxda Horseed ayaa la filayaa in isbedel weyn ee sanadkan ay ka soo muuqdeen, waxaana lugta hore ee markaasi kulamadaasi yihiin kulamada dambe. Waxaa la ciyaari doonaa isla maalmaha ku xiga oo toddobaadka dambe. Wuxuu socon doonaa horyaalkan 2 isbuuc oo keliya. Kooxaha sidaas ayayna ugu soo qaybgali doonaan, iyagoona tartankan xiise iyo xamaasad gooni ah ayuuna u leeyahay horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya marka laga eego qaab ciyaareedka kooxaha. Sidoo kale kooxaha ayaa sameynaya diyaar garow iyo sidoo kale isku diyaarin kulamada soo xiga. Maalinta Berito ayaa ah maalin markaasi kulan aad u xiiso badan. Labada kooxood ee ugu horeeya ayaana lagu daafuri doonaa, waxaana qayb ay ka yihiin taageerayaasha ay sugayay kulankan, iyagoona kulan ciyaareedkan uu kaga duwan yahay kulan ciyaareedkii hore ee lasoo ciyaaray horyaalka. Sanadkan waxaa la filayaa inuu isbedel weyn iyo xaraarad ay markaasi yeelan doonaan kulan ciyaareed walba oo markaasi la ciyaarayo. Dadkana aad ayayna u xiisa qabaan kulankan oo la wada sugayo in markaa natiijada ka soo baxda. Waxaan ku eegi doonaa waqtiga ciyaarta ee ku soo dhamaato, waan idiin soo gudbin doonaa haddii aad idmo.
kulamada dhammaan ee la ciyaarayo horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya.